السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي. waxaan idin hayaa shay aad iyo aad idin cajab gelinaya. waa bahalkaas waa ujeedin waxaa gelinaysaa jaarjiga dabka markuu ka dhaco. waa ujeedin hadda inuu qiiqaayo maasha Allah tabarakallah raxmaan. jaarjiga markuu dhameysto biyo yar ku shubeysaa. waxaa ku shubeysaa catar ay catarka haystida ku shubeysaa. waa daareysaa waa kaas waa ujeedin soo u qiiqaayo. waa fudud yahay dhuxul mashidaysid qiiq kale mashidaysid ay catar kale nooca ku shubeysaa maasha Allah tabarakallah raxmaan. guriga aad iyo aad ugu carfinaya. waa ujeedin soo u qiiqaayo kun cadar oo kale nooca isku dari kartaa. uunsiga iyo dhuxushi iyo waxaas dhan maba u baahnidba. waa ujeedin maasha Allah tabarakallah raxmaan. waxaa leewahay 150 koron leewahay. waxaa haysa maasha Allah saaxiibadan xabiibi cadeey maasha Allah qofkii rabo xagaasuu ka dalban karaa amba ka doonan karaa. waa shay aad iyo aad cajiib u ah. intaa ka daminaysaa saasna waa u daaraysaa waa ujeedaa. maxaa la dhahaa jaarjina waa gashanaysaa maadaama hadda dhuxusha maxaa la dhahaa haddii la saaro maxaa la dhahaa ice cream touchka oo furanka ah ama foornada ah dhuxushi way qarxinaysaa haddii oo maxaa la dhahaa dhuxusha lagu shidi tago. laakiin kan dhuxulna ma u baahnid wax kale ma u baahnid. waa ujeedin asxaabi maasha Allah tabarakallah raxmaan. ay catar kale nooca ku shub shida gurigaaga ay waqtiga aad doontidbo ku carfi isagoo aad iyo aad u udgoon badan. dhuxul iyo waxna aadan shidin foornadiina kaa qarxin. marka ahlan wasahlan kusoo dhawaada. aniga ma gado laakiin waa maxaa dhahaa soo qaatay aad iyo aad uga helay maasha Allah. waa ujeedin هكذا أهلا وسهلا فيكم. وهي عصب عالم كان جعلها بلها عصبنا كدر صدا.